السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ولا Soomaaliyeed meel kasta joogtaan videogan wuxuu ku saabsan yahay arrin aad iyo aad khatar u leh oo ku soo korortay baraha bulshada arrintan khatarta ah oo ku soo korortay baraha bulshada waa barnaamijkan la yiraahdo TikTok iyadoo ay ka buuxaan waxyaabo xun oo faaxisha oo fara badan haddana wuxuu intaas sii dheer yahay barnaamijkan challenge-yo la soo geliyo maalin kasta saacad kasta challenge-yadan qaarkood waxay khatar ku tahay nolosha carruurtaada iyo xitaa mustaqbalkooda isbuucan waxaa dhintay gabar 10 jir ah gabadhan waxay dhimatay ayadoo iska duubaysa clip ay TikTok gelinaysay clipkan ay TikTok gelinaysay gabadhan waxay duubaysay challenge-gan magaciisa waxaa la yiraahdaa blackout carruurtaada haddaa weydiiso blackout way garanayaan blackout waa challenge cunuga uu neefta isku dhajinayo ilaa uu ka suuxo gabadhan yar ee 10 jirka ah waalidkeed guriga ayay joogeen fadhiga ayagoo joogaan way baxday koray kortay qolkeeda ayay gashay TikTok ayay duubaysay ayadoo samaynaysa challenge-ga blackout neefta ayaa la isku celinayaa ilaa qofka ka suuxo gabadha qolkeeda gashay fiidiyogeeda ayay duubaysay neefta ayay isku dhajisay way suuxday cabaar ka bacdi gabadhii markii la raadiyay qolkeeda la galay gabadhii way suuxsan tahay isbitaalka markii la geeyay isbitaalka waxay sheegeen in gabadhan ay meyd tahay markii la fiiriyay mobilka ay isticmaalaysay gabadhan waxay iska duubaysay TikTok clipka ay duubaysana wuxuu ahaa blackout challenge 2 isbuuc ka hor sidoo kaleeto waxaa jira challenge kale oo la yiraahdo shoelaces shoelace challenge cunug yar oo 11 sano jir ayaa sameynay challenge-gan wuxuu ku saabsan yahay xariga kabaha ayaa la soo qaadayaa waa la dhunjinayaa ayadoo tartiib dhuunta loo gelinayo cunugan sidii uu sameynaya asagoo video iska duubaya asagoo sidii sameynaya videogana duubaya xariga kabaha uu ku margaday markuu ku margaday wuu dhacay isbitaala loola orday isbitaalkii markii la geeyay cunugii wixii laga soo saaray cunugii maskaxdiisa waxaa gaaray dhaawac brain damage ayaa ku dhacay bishii la soo dhaafay waxaa jira challenge magaciisa la yiraahdo skull breaker 3 qofood ayaa wada istaagaya qofka dhexda ku jira ayaa kor u boodaya labada kaleetana lugaha ayay u bixinayaan qofka markaas jeegada ayuu ka bilaabayaa dhulka waa arrin aad ay khatarteedu badan tahay khaasatan da'yarta ayadoo la raadinayo in dadka laga qoslisiiyo in views la helo in mataqaanaa like la saaro in loo qosqoslo ayadoo la raadinayo cunugaaga wuxuu ku weyn karaa noloshiisa fadlan waalid waxaa u baahan tahay inaad ka warqabto teknolojiyada uu isticmaala carruurtaada khaasatan social mediaha khaasatan barnaamijka TikTok challenge-yadan la soo gelinayo waa khatar adduunka dhan qaatir bilaahi ay ka taagan yihiin hadda isbuucan aan ku jirno waxaa la sheegay TikTok inuu yahay barnaamijka adduunka ugu isticmaalka badan adduunka oo idil xitaa Google Microsoft teknolojiyada kale oo dhan wuu ka saramaray sababta ugu saramaran waxa waaye carruurta ayaa zaa'id u isticmaasha da'yarta oo dhan ayaa isticmaala barnaamijkan waa khatar ku wajahan carruurtaada waadna inaad ka badbaadiso eeg mobilka carruurtaada maxay ku fiirsadaan video caankee ay fiirsadaan social media caankee ay ku jiraan sawirro caankee ay qaadaan video caankee ay qaadaan yee la xiriiraan maxay sameeyaan social media ku sameeyaan waxaas oo dhan waa muhiim inaad ogaato khaasatan inta lagu geeyo jiro xilliga fasaxa carruurta guryaha ayay joogaan dhammaantood teknolojiyada ay isticmaalayaan zaa'idkan ay u isticmaalayaan waxaa sii kordhaya khatarta carruurtaada ka soo wajihi karta teknolojiyadan barnaamijkan haddii cunugaaga uu isticmaalo barnaamijkan waa barnaamij khatarihiisu ay aad u fara badan yihiin carruurtaada ayagoo isla challenge ku guuleyso waxaa laga yaabaa inay waayaan noloshooda challenge-yadan
cadad ma laha ku jira barnaamijka tiktok meeshan ayadoo waxyaabo xunxun oo badan ay ku jiraan haddana khatartiisa ugu sarreysa barnaamijka tiktok waa jaalanjiyada ku jira waxaa la sameynayaa jaalanjiyo khatar ku ah qofka naftiisa haddii cunugaaga uu isticmaalo asagoo isleh dadka kugu xiran qanci ka farxi ka qosli waxaa laga yaabaa cunugaaga dhaawac weyn inuu soo gaaro amaba uu noloshiisa ku waayo fadlan gaarsii waalid kasta si caruurtooda ay uga badbaadaan khatarta tiktok khaasatan jaalanjiyada maalin kasta la soo gelinayo barnaamijkan waa barnaamij caruurtaada noloshooda dhib weyn u soo jiidi kara fadlan la wadaag walaalaha kale waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu